waxaa markasta la sheegaa in qofka uu aroor hore toosa ay tahay wax guul lagu gaari karo waxay kordhisaa ayay yiraahdeen hurdada oo waqti hore laga tooso qolyaha caafimaadka kartida qofka dadka caanka ah iyo madaxda shirkadaha ayaa hore u toosa haddaad aroortii hore u toostid waxaad helaysaa farxad iyo caafimaad badan waxaadna dareemi doontaa inaad hoggaanka u haysid noloshaada haddaba ma dhabba waa lagu hoodmaa hore tooska su-aashan jawaabteeda ayaan rabnaa inaan maanta ku falaqayno barnaamijkeena xogdoon fadlan haddii uu ku soo gaaro muuqaalku waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro inaad nagu soo biirtidna dhiirigelin ayay noo tahay ku soo dhawow muuqaalka oo faahfaahsan inkastoo ay jiraan sheekooyin badan oo arrintaa laga sheegaa waa beriga oo la tooso ma ahan wax si la yaab leh u furdaamin karaya dhibaatooyinka ka haysa maaraynta waqtigaaga dadka qaar ayay sabadhib ku tahay arrintan sirtu waxa weeye inaad heshid qaab aad ku xallin kartid mushkiladda adiga ku haysata haddaba waxaan kuu soo gudbin doonaa talooyin soo jireen ah oo kaa caawin kara inaad kaga maaranto wax badan ee arrintan laga sheego oo kuu suurtagelin kara inaad dejisato qorshe adiga kuu gaara oo aad waa berigii ku toostid haddaba su-aasha koowaad waan isweydiinayna waxay tahay waa beriga oo la tooso maxaa laga helaa waxaa jira faa'iidooyin badan oo dadka hore u toosa badankood ay sheegaan waxay sheegaan aroortii hore buuq inuu yar yahay oo xataa carruurta iyo dadka gurujooga ah dhammaan ay wada hurdaan sidoo kale tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay yar yihiin fariimaha telefoonka ku soo dhaca ama iimaylada ku soo gaara marayaha shirkadda Apple Tim Cook ayaa sheegay inuu tooso subax walba 3:45 daqiiqo oo aroornimo oo uu aqriyo fariimaha emailka ugu soo dhaca waxa uu sheegay dadka isla wada shaqeeyaan badankood inay toosaan 6:45 daqiiqo oo aroornimo oo qodheedu ah waqti hore Oprah Winfrey ayaa iyaduna sheegtay inay tooso 6:02 daqiiqo oo aroornimo maalin kasta si ay dunida u fiirsato una jimicsato daraasad ayaa sidoo kale cadeynaysa in horey oo loo toosaa ay horseedi karto guul la gaaro dadka horey u toosaa waxay si quman ula jaan qaadaan jadwal caadiga ah ee shaqada waxaana suurtagal ah inay yeeshaan shakhsiyad firfircoon oo suurtagelin karta inay tacliinta ka gaaraan heer sare ama ay helaan shaqo mushaar badan leh haddii in aad hore u toosta aanay dabiicigaaga ahayn waxaa jira tabo aad tijaabin karto inaad jimicsi bilowdo oo aad isla markiiba iftiinka waaga aragto waxay carisaa habdhiska jirkaaga iyo heerkulkiisa oo weliba ay firfircoonaan gelisaa haddaba in hore loo toosaa ma ahan wax ku habboon qof walba waxaa jira talooyin badan oo la sheegay in aanay sahlanayn in qofku uu noqdo qof hore u toosa hagaag balaan isweydiino su'aal kale hore u tooska qof kasta ma ku habboon yahay maya su'aashan jawaabteedu waa maya in hore u toosku kugu habboon yahay oo uu kaa dhigi karo qof firfircoon waxaa dhici karta inay ku xidhan tahay disadayaasha jirkaaga waxaa jira cilmi baarisyo badan oo lagu daraaseeyay sababta dadka qaar marka la eego abuurista jirkooda ay u firfircoon yihiin aroorta hore halka qaarna ay habeenkii aad u firfircoon yihiin waxaase dhici karta in tusaale ahaan aad gelinka dambe firfircoonaan kartid run ahaantii daraasad dhowaan lagu baahiyey majalada Nature Communication ayaa tibaaxday cadaymo dheeraad oo arrintan ku saabsan cilmi baarayaashu waxay xog ururin ku in ka badan 700 oo kun oo qof waxayna ogaadeen inay jiraan 350 nooc oo hidasadayaal ah oo ay suuragal tahay inay sababaan in qofka caadi ahaan uu firfircoon yahay aroorta hore ama fiidkii tirada badan ee dadka cilmi baarayaasha ka qayb galay ayaa marka la eego waxay noqonaysaa tii ugu badneed ee nooceeda ah ilaa haatan inkastoo oo cilmi baaris dheeraad ah loo baahan yahay si natiijadan loo sugo haddii adiga aan u dhalan inaad aroor hore firfircoonaato aad go'aansato inaad aroor hore toosto waxaa suuragal ah inaad wiiqaysid xilliga firfircoonaanta jirkaaga sida caadiga ah waxaa suuragal ah inay jiraan arrimo shakhsi ah oo qofka ku kalifa inuu hore u tooso Marilyn Davison oo ah professor sare oo ku takhasustay cilmi nafsiga shaqada oo ka tirsan jaamacadda Manchester ayaa waxa ay tiri waxaa jira arrimo kale oo arrintaas saameyn ku leh sida xamaasadda rabitaanka qofka ee ah inuu shaqada ka mira dhaliyo kuwaas oo suuragali kara inuu qofku u heelanaado inuu hore u tooso waalidiinta carruurta yaryar haysta ama shaqaalaha aan shaqaynin saacadaha caadiga ah ayay dhici kartaa inay ikhtiyaar u leeyihiin goorta ay jecel yihiin inay hurdada ka toosaan badhaafaankuse waxa weeye in aroorta hore oo aad toostaa aanay suuragal ka dhigayn inaad shaqo badan qabato run ahaantii waxaaba dhici karta inay saameyn taban kugu yeelato arrintan waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka fadlan haddii uu ku cajabiyay waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like dhahdid sidoo kale inaad nagu soo biirtid oo aad subscribe channelka noo dhahdid dhiirigelin ayay noo tahay mahadsanid